muuqaalkan waxaad ku bari doontaa wixii dhammaan basic ah. CapCut ayaa noqotay most powerful app. Kusoo dhawaada muuqaalkiina ugu horeeyay ee basic level. Markaad appka saan usoo furatid, new video ayaad leedahay, kadib aad ayaad leedahay. Meeshaan aad calaamaday ayaad aadka leedahay. Soo marka aad saan u dhahdid, saddex meel ayuu saan ku tusi doonaa. Saddexdan waa mid aan maaragtay wax walba ku samaysan doono. Hadda waxaan ka bilaabaynaa sida muuqaal loo jara. Muuqaal sida loo jara waxaan aan calaamaday leenkan ah ayaad ku tusinaysaa, kadibna split ayaad leedahay. hadda muuqaalkii dhaxda ayaad kala jirtay. hadda rabtid inaad edit gareysid, aan hadda kanayto midig jiraan edit garey ujeedaan. midaada kale waxaan sii aadaynaa aspect ratio. muuqaalkaaga hadduu kiis yahay, hadduu yahay mid TikTok ah, mid YouTube ah oo ujeedaan. muuqaalada waxay kala qabaan aspect ratio. marka aan TikTok markaan ka dhigay waa ujeedaan muuqaalkayga waa u isbedelay. muuqaalkaaga haddaad rabtid inaad background soo darsatid, waxaad dhufanaysaa background meesha aan ku calaamaday background, kadibba waxaad kala qabaa saddex meel. sidoo kale image oo ku dhufan karaa. marka waxaad soo gashi kartaa muuqaalada maaragtay gallery ku jira ayaad background ahaan u isticmaali kartaa. sidoo kale blur markaad daawatid waa ujeedaa muuqaalka asaga unbaa adig background usoo ah. waxaad samayn kartaa inaad muuqaalkaaga aad gacanta kusoo zoom garaysid sidaan camal. sidoo kale adigoo maaragtay gacan waxaan isticmaalin muuqaalkaaga dhinaca dhaqaaji kartaa ama soo zoom garay kartaa. waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay transform aad ku dhufanaysaa. markaasaan ku dhufatid advanced aad kusoo dhufanaysaa, meelaa ka dhigaysid adiga waay. marka andada rotation wax marraba zoom aan rabaa, zoom ayaan ka yareeyo ujeedaa. tusaale adigoo maaragtay muuqaal edit gareynayo aad muuqaalkii gacanta kaaga dhicisay lama filaan ayaa iska edit gareysid. sidaas muuqaal kusoo ceshitid waxaad ku dhufanaysaa meeshaas kora undo ayaad leedahay. marka hadda anigoo ku dhufanahay ujeedaa muuqaalka ayaa soo noqday wixii maaragtay soo maraynaba. hadda muuqaalka sidii hore uu kusoo noqday waa ujeedaan oo malaynaa. haddaad rabtid inaad muuqaal gaabisid, aad dhinac ka soo gaabisid adigoo split aan ku dhufanin, muuqaalka ayaa saan u dul istaagaysaa, kadibna sidaana soo yeelaysaa. dhinac saan u jid kartaa, sidaana u soo celi kartaa. I hope inaad fahmaysaan. muuqaalkaaga waxaa sawir ahaan uga dhigi kartaa. waad ka soconaysaa meeshaan freeze ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa. hadda aan wada fiirina Mr. White oo ujeedaan. hadda muuqaalkii sawir ayaa dhexda ka galay. haddaan qaybta overlay tagna, overlay markaan saan usoo dhufana aan green screen soo qaadana. green screen halka waxaa looga qaadaa asagaasaan loo dul istaagaa, kadibna remove background chroma key ala si dhigta chroma key, kadib greenka ayaa saan loogu dhumeeyaa. hadda ujeedaa wuu ka dhumay. haddaan aadno qaybta adjust waa meelaha oo maaragtay muuqaalada laga qorxiyo. hadda saturation ku darnay ujeedaa muuqaalka uu gaditay, sharpness-aan kusii darnay muuqaalka kasta waxyar nooc waa ka baxay. HCL haddaa imaatid muuqaalka meel walba say u egtahay ayaad maaragtay aad mataalaysa. hadda muuqaalkan waa ujeedaa sida maaragtay uu kalarkiisa isu bedelayo. markaa maaragtay kalarkiisa wixii meesha ugu jiraba way isbedelayaan. hadda dan white si daarta white la kor u qaada si noqona white iyo noqday baalkii. marka haddii maaragtay aad inaad ka laabatid rabtida waxaad ku dhufanaysaa maaragtaa receipt ku dhufanaysaa receipt. markaas aad u dhufatid hadda muuqaalkiisa ayuu kusoo noqday. mideeda kale muuqaalka ending waxaan saan waa iska delete gareynaysaa si uu maaragtay wadamaga kula kicin. haddaad rabtid inaad muuqaal kusoo darsatidna marka aad ayaad leedahay. marka sidaan baad ku darsanaysaa wax weyn maahan. hadda muuqaalkii oo kusoo darsan waa ujeedaan. sidoo kale haddaad rabtid inaad muuqaal dhexda kasoo gelisid, leenkan baad ku toosinaysaa, kadib aad ayaad leedahay.
muuqaalkaas soo qaadanaysid haddaa in yar ka soo qaadan rabtid sidaan oo ayaad yeelaysaa. muuqaalka ayaad dul tegaysaa kadib sidaan ayaad crop u leedahay. hadda ujeedaa ani muuqaalka intiin ka rabay baan soo gashtay. waxaan waa iska easy sidaad ujeedaan. qabab badan waa inoo dhiman tahay ee aan baran doona. hadda waxaan aadaynaa qaybta overlay aan aadaynaa add overlay marka la dhaha aan aadaynaa sida muuqaal ama sawir hadduu yahay wax ma la dhaha chroma key lama dhaha. haddii waxaan fiirinay green screen aan fiirinay markaa saa usoo gashatid waxaad ku dhufanaysaa remove. sidoo kale auto removal ayaad leedahay. oo ujeedaan hadda muuqaalkii backgroundigu waa ka tagay. waxaa kalaan samayn karnaa inaan ku noqono add overlay inaan dhahna oo background ah aan soo qaadan karnaa kadibna splice ayaan leenahay. marka haddaan da overlay ku dhufta muuqaalka si noqdi waa ujeedaa. marka waa qababaha kala duwan ee loo isticmaalo overlay. hadda waxaan kor taabanaynaa qaybta filter ayaad ku dhufanaysaa. muuqaalka meeshan waa laga qurxiyaa. marka waa ka laabana hadda mar kale ayaan ka hadli doonaa. haddaan ka laabta ayaan aadna qaybta stickers waxaad ka helaysaa dhammaan stickyaalka ayaad ka helaysaa. hadda si toos waxaan u aadaynaa qaybta textiga. add text ayaad leedahay. markaa text ku dhufatid kadibba saan ayuu kusoo bixi doonaa. textadaas markaan waxaa qoraa awra aan hadda qoray. markaa saan qortid template ayaad ka dooran kartaa. ujeedaa wax inaba aan caadi ahayn ay CapCut soo dirtay the new feature of CapCut. marka haddaan ka laabana hadda ujeedaan waxaan kasii isku bedelay. hadda maaragtay hadda aan aad qaybta fontiga meeshaanito waxaad ka bedeli kartaa designyaalka oo maaragtay waxaagaad u qoran yahay textigaada. stylen adigoo wax walba bedeli kartaa. marka qoraal aad qortay sinaba mid aan caadi ahayn waad ka dhigi kartaa. hadda aniga glow waxaan ka yareeyaa. haddaan aadna maaragtay qaybta effect ujeedaan waxyaalo qurux badan ayaa soo baxay. sidoo kale animation waa meesha maaragtay oo textiga oo movement u hagaajiya. la fahmaysaan aan umalayna. marka hadda haddii taabto meeshaan ay qoran tahay data ujeedaan muuqaalka sii noqotay macalika textiga sii noqday ujeedaan. sidoo kale haddaan ku noqonna barta texti hadda markaasaan noqdo waxaan ku darayaa edit aan ku darayaa qoraalkaasito oo anigoo maaragtay qoraal kale aan soo gashanin. qoraalkaasito kalarkiisa waa bedeli karaa anigoo magaasaan u dul istaaga edit aan kusii qoraa edit style meesha aan idin calaamaday. marka hadda ujeedaan meesha edit noocan ka dhigay anigoo maaragtay qoraal kale aan soo gashanin. midka baan aan dhahay edit style baan dhahay. haddaan aadno qaybta audio aan extract ku dhufana videogi ayaan maaragtay aan music ahaan u isticmaali karnaa. sidoo kale sound haddaan ku dhufana wixii audio looga jiray ayaan isticmaali karnaa. meeshaanito kale oo sound effects haddaan ku dhufta waa maaragtay qaybta oo sound effect. intaan ayaan kusoo koobaynaa. wax badan waa noo dambeeyaan. marka step by step aan socon doonaa guys. insha Allah waan socon doonaa.